Assalaamu calaykum dhammaan saaxiibayaal. Maanta muuqaalkan waxaan ku hadli doonaa sidaad u samaysan lahayd adigoo Soomaali joogo PayPal account. Waa sax PayPal account shaqeynayo lacagna ku diri karto, lacagna lagu soo diri karo ayaa samaysanaysaa adigoo Soomaali joogo. Dhalinyarta inta badan commentigooda waxaan ku akhriyay haddii ahaan lahayd website, haddii ahaan lahayd application iyo haddii ahaan lahayd qaab walba lacag dibadaha laga keeno inay u dhiban yihiin PayPal account. Marka sida hadda waxaan ku arkay Swipe-kun markii dhalinta aan u sheegay Swipe-kun kaas dhalinyaradu waxay dhaheen man haysano Mastercard, man haysano PayPal nooma furna, Mastercard-na ma haysano oo xageen kala baxana. Marka saaxiib Mastercard inaad soo gadato muhiim ma ahan, waxa muhiim ah inaad samaysato PayPal account. Maanta waxaan ku fahansiin doonaa adigoo Soomaali joogo ayaa samaysan doontaa PayPal account oo dhab ah shaqeynayo. Lacagdaada haddii ahaan lahayd Swipe-kunkan lacagdaada ee shuruudahooda aad buuxiso lacag kula bixinta waad kula bixi kartaa. Website mis application lacag PayPal lagala baxayo waad kula bixi kartaa, waxaadna heli kartaa PayPal real oo shaqeynayo. Marka haddii nagu cusub tahay si xishmadana waxaan kaaga codsanaynaa YouTube-kan inaad ku soo biirto. Haddii aad tahay qof hore noola joogay like noo saarto, noo share gareyso si saaxiibo badan u gaaro channel-ka mahadsanidin. Marka muuqaalkan aan gudagali doonaa si aad u samaysan lahayd adigoo Soomaali joogo PayPal account uu shaqeynayo sanadna uu leeyahay rafiisna uu leeyahay aan samaysan doonaa. Marka waxaad u baahan tahay inaad soo kayso Google Chrome-ka kuuga jiro ani browser walba ayaa isticmaali kartaa. Aniga browser-ka aan isticmaalo waa Chrome marka saaxiibayaal markii adiga browser-ka san u soo gasho qaybta searching-ka ayaa waad ku qori doontaa paypal.com. marka paypal.com baa leenahay. saaxiibayaal sida u jeedaan waxaan keenay homepage-ka PayPal ayaan joognaa. marka sida u jeedaan meeshan hadda waxaan joognaa meeshan qor calaamadan waxaad ku arkaysaa oo halkaan ah filirtan ku aadiyay paypal.com/so/website. waxaad naqan kartaa adiga haddii ku tahay home ayaa iska bedeli kartaa oo qof walba siba u soo saara laakiin muhiimad haddii saan u gasho meeshaas kor si fiican u fiiri /so wax lagu soo gaabiyay waxaad joogtaa lagu leeyahay PayPal-ka Soomaaliya ayaad u jeedaa meeshaas oo ah Soomaaliya ayaa lagu soo gaabiyay. marka hadda waxaan joognaa san PayPal-ka Soomaaliya aan joognaa. marka waxaan rabnaa inaan furno PayPal shaqeynayo oo dhab ah, laakiin marka waxaad u baahan tahay qaybta searching-ka san ugu dhufanaysaa oo anaga ku dhuftay meeshan ay waa qoraysaa paypal.com/ ay leedahay. marka aad dhahdo bh ay leedahay, marka aad bh geliso /home ay leedahay. marka oo suba ku soo saari doona waa midkan aan u jeedno. marka home baa leenahay. marka sidaad u jeedaan saaxiibayaal dashboard-ka aragtidii hadhow meeshaas markii somta noo ahayd ku arkaynay SO-ta noo ahayd kuma aragno hadda waa bh ayuu noo yahay. marka waxaan joognaa PayPal-ka Philippines ayaan joognaa. marka waana samaysan doonaa oo dhammaan waan kula wadaagi doonaa. aniga hadda PayPal-kan aan samaysan doonaa adigoo muuqaalkan ka fiirsanayo. marka hadda waxaan joognaa PayPal-ka Philippines. marka hadda aan samaysan doonaa waxaad u baahan tahay marka adiga halkan san u soo qorto aad halkan imaado meeshan ku qoran tahay sign up inaad ku dhufto. marka sign up baan ku dhufanaynaa. marka halkan ku keenaya oo waxaad leedahay personal account iyo business account. aniga maadaama aan rabo website inaan ku shaqeysto, application-nada inaan ku shaqeysto, waxaan si doonaan u isticmaalo. marka waxaan dooranayaa business account. adigana waxaan kugula talin lahaa inaad doorato business account. marka business account ayaan ku dhufanaynaa. waxaan leenahay next mission ku qoran tahay ku dhufan doonaa oo step by step noola soo muuqaalkan haddii aad saan u dhaweyso ma fahmi karto waxyaabo la isku toosinayo waaye. marka haddii halkan ku keeno waxaad gelin doontaa email-ka aad halkan gelin doontaa, laakiin aniga email-kay waan qarin doonaa. adiga email-ka aad leedahay ay halkan gashan doontaa. marka aniga marka saan u geliyo waxaan leeyahay continue.
marka waxaan weydiiyay inaan gelino passwordkaas marka waxaa loo baahan yahay capital iyo small mis xarfo waaweyn iyo xarfo yaryar iyo waxyaabaha oo xarfaha yaryar meeshan san u qoran xarfahan inaad geliso ee loo baahan yahay oo intaan ah san xarfahan noocyadan ah dhibcahan ah in waxaad ku darto lambaro inaad ku darto maadaama si u noqdo password shaqeynayo oo la jabsan karin marka halkan waxaan gelin doonaa aniga password aan gashan doonaa marka okay saaxiibayaal passwordkan yaa ku yaraanin 8 xarfood ha ku badnaado 8 xarfood yaa ku yaraanin marka saaxiibayaal waxaan leeyahay meeshan ah marka sharciyada waa inaad aqbashaa tigtan halkan san u saartaa marka continue ayaan dhahaynaa marka saaxiibayaal continue ayaan ku dhufanay oo saad u jeedaan halkan ayaan keenay marka halkan dhamaan waa idin tusin doonaa meesha kor waxaad gelin doontaa magacaada koowaad meesha hoos waxaad gelin doontaa magaca labaad halkan waxaad gelin doontaa business name-ka macnaha business name-ka waxaan ula jeedaa wixii doonta waad gashan kartaa lacag haddii aad tahay qof website iyo waxyaabahaas leh waxyaabahaas ayaa gashan kartaa qof oo dukaan iyo waxyaabahaas ku shaqeysto magacaas ayaa halkan gelin doonaa oo sidaas halkan lambarka halkan waxaad ku dooranaysaa lambarka Soomaaliya ku dooranaysaa halkan marka waa meesha uu khatarsan Soomaalida ay la wareersan yihiin address ma haysto address anaan ku siin doona kula wadaagi doona aad halkan gelin doonto addresskaas isticmaal marka aad addresskaas isticmaasho wax walba waa ku hagaagsami doonaan marka haddaan gelin doona dhamaan horta halkan aan ku bilaabaynaa oo Soomaaliya aan ku dooranaynaa si aad dhamaantiin u wada fahantaan lambarkeena Soomaaliya aan gelin doonaa marka halkan oo ku jira sida u jeedaan lambarka Soomaaliya aan gelinay marka saaxiibayaal waxa u jeedaan meeshan waxaan geliyay Nuur hoostaan waxaan geliyay Nuur Cabdiraxmaan waa magacayga dhabti ah halkan marka business name waaye magaci doontaad gashan kartaa aniga hadda waxaan geliyay Halbeeg Time haddii aan rabo waan ku bedeli karaa laakiin saxiiska ahaado meeshan waxaan geliyay lambarka Soomaaliya aan ku leeyahay geliyay aniga hadda waxaan geliyay lambar Somtel ah waana Soomaaliya Hormuud dhamaan waad gashan kartaa marka meeshan hoos waxaad ugu jeedaan addresskii ay noo soo qabtay waxay leeyahay Muqdisho Xamar Banaadir waa zip code-kan 00552 waa wadankii meeshan joogo waa soo qabtay marka waan tirtiri doonaa oo waxaan rabaa address kale inaan isticmaalo maadaama Muqdisho aan joogdaa Banaadir ayaa gobolka Banaadir joogta leeyahay marka waan tirtiri doonaa waxaan u bedeli doonaa address Filipinian aan isticmaali doonaa waana free waxaan idin dhigi doonaa addresskaas description-ka muuqaalkan waan idin dhigi doonaa si saxan adiga copy ku soo sameyn kartan waxaan ku dhigi doonaa Telegram-ka marka aniga waxaan kugu talin lahaa inaad Telegram-ka ku soo qaato maadaama Telegram-ka waxa la soo dhigay copy text ku sameyn kartan copy link okay marka waxaas baan gelin doonaa saaxiibayaal okay saaxiibayaal saad u jeedaan address san ayaan u gelinay oo midkan halkan san u qoran waaye haddii rabto screenshot waad qoran kartaa marka meeshan waxaad ku dooranaynaa halkan meeshan hoos waxaan ku dooranaynaa Premier Currency lacag USD dollar baan ku dooran doonaa lacagdan ayaan ku dooranay USD dollar marka waxaan leenahay agree and continue aan leenahay marka dhammaan san u geli lambarkaada geli meeshan business name magaci doontaad gashan kartaa meeshan magaca koowaad iyo magaca labaad meelahan san u buuxi waxaan leenahay marka halkan aan ku dhufanayna agree marka saaxiibayaal business type ayaan keenay oo halkan marka waxaad ku dooranaynaa oo waa maxay aynu leeyahay marka meeshan ayaan ku dooranaynaa halkan waxaad gelin doontaa business service ayaan gelin doonaa business service meeshan intaan waa gelinay meeshan hoos waa optional website haddii aad leedahay website-kaad ayaa gashan doonta haddii aan lahayn waad iska deyn kartaa aniga waxba gelin maayo continue ba leeyahay markale marka saaxiibayaal halkan aynu keenay marka waxaad leedahay meeshan waa date maalintii aad dhalatay bishii aad dhalatay iyo sanadka nationality Soomaaliya
iyo waxyaabahan hoostan addresskii ayaan noo soo saari doono tagto waa noo saarantahay haddii aan ku qaadno addresskii halkaas soo gelinaa meeshan ku qoran marka tagtaan waa inaad halkan saan u saartaa marka meelahan ayaa loo baahan yahay inaan buubuuxino marka waan buubuuxin doonaa saaxiibayaal marka aniga horta taariikh saas uma hayo laakiin wixii doontaa gashan kartaa oo muhiimku ma ahan laakiin sidaada marwal waxaan kuugula talin lahaa haddii aad meelaha furanayso sanadkaada 20 korley ku jir waxa ku yaraanin waayo qof 18 sano ku yar meelaha qaar looma ogolo marka iska yaraynina haddii aad yartahay hadda sanadka weynayso haddii aad joogto meelahan online ka waxyaabaha lagu soo samaysto marka halkan nationality waxaan ku dooran doonaa Soomaaliya waatana waa ku jirtaa markaan gelinay meeshan waxa loo baahan yahay inaan saan ugu furno halkan marka national ID iyo passport waxyaabahaas ee loo baahan yahay marka passport aan ku dooranaynaa haddii aad haysto ID-gaas meeshan ah national ID haddii aad haysto waad gashan kartaa laakiin passport aan gashanaya oo passport haddii aad haysto gasho passport lambarkaaga haddii aadan haysan waxaad gashan kartaa qof walaalkaaga bahaysta hooyadaada bahaysta aabahaada qaraabada qof la kaleeysa passport haddii aad wayso marka meeshan haddii aad wayso aniga hatta passport ma gelinayo laakiin waxaan iska simple ah passport lambarka passportka waa 13 lambar waaye marka qiyaas baa ku dhufanaya oo 13 lambar xisaab ahaan halkan gelin doona saas aan ku sameeysan doona aniga saas kugula talin inaad samaysato taladayda ma ahan laakiin waxaan kugula talin lahaa inaad samaysato passport saxan inaad gashato laakiin aniga maadaama aan ba haystan passport waxaas ay gashan doona waan ku isticmaali doona adigna haddii aad doonto waad gashan kartaa oo passportka marka lacagta bixisay meelahaas lagama weydiino laakiin marka adiga passport aad wayso meelahaas lagu xujeyn doona passportka marka halkan passport aan gelin doona waxa la isku gelinaynaa 13 lambar u baahanahay marka aad saan u geliso yaa ka dhumin waxaan passport amal aad u gelisay haddii ka dhuman hadhow dambe lagu weydiinayo dhihi kartaa oo waa u diri kartaa marka yaa ka dhumin marka waxaan leenahay submit aan ku dhufan doonaa shan qoran tahay submit aan marka saan ugu dhufanaynaa saaxiibayaal sidaad u jeedaan saaxiibayaal sidaad u jeedaan PayPal lacagtii xilliga doono ku diri karno sidaad u jeedaan meeshan waa 00 haddii aad Soomaali ku samaysato PayPal 00 ah meeshan kuma soo saarayo PayPal aan saan ku samaysan oo shaqeynayo oo real ah lacagna noo diri karo oo lacagna anuguna dad ugu diri karno send iyo rafiisba uu leeyahay samaysanay marka muuqaalkan haddii aad wax ku fahantay saaxiib waxa waajib kuga ah in aad muuqaalkan like saarto share gareyso waajib ba kugu tahay sida aan waxba ku fahansiinayo marka waxaan samaysanay PayPal real ah noo shaqeyna xilliga doono lacag ku shabin karno xilliga doono lacag kula bixi karno maadaama dhalinyarta maalmahan dambe PayPal xagel lacag kula baxnaa iyo PayPal milihin Kenya ma joogno Europe ma joogno Mareykan ma joogno dhalinyarta saasna igu wareeriyay marka PayPal sida u samaysan lahayn ayaan ku muuqnaa waan keenay sida idinka PayPal u samaysan lahaadeen marka PayPal markaan samaysanay muuqaal kale ayaa noo dhiman muuqaal sida PayPal-ka lacag ugu bixi lahayd waxaad u baahan tahay inaad ka hirto Payoneer waxa la dhaxayo ayaad u baahan tahay inaad ku hirto marka lacagdaad EFC ayaad kula bixisaa oo haddii rabto lacagdi lagu soo dhigo mar walba kula bixi kartaa waana keeni kartaa Payoneer inaad ku hirto Payoneerna marka sida loo furtano waan ku soo hadli doonaa sida la iskaga xiran waan ku soo hadli doonaa haddii aad nagu codsataan Payoneerka muuqaalkan ma dheereen doono marka Payoneer halkan saad u jeedaan edit ayuu leeyahay oo active ah meeshan ay gelin doontaa oo USD dollar baan isticmaalnay si aniga u soo sameey addresskaasna waxaan idin dhigi doonaa description-ka muuqaalkana waa idin dhigi doonaa comment-ka koowaad waa idin dhigi doonaa waxaan idin dhigi doonaa Telegram-ka waxa muhiim ku ah inaad Telegram-ka ku dhigo copy ku soo dhaxdo maadaama description-ka iyo comment-ka koowaad copy ku dhigi karin oo screenshot kaliya ku noqonayo marka meeshaas ku dhigi lahayna ku soo copy-saysto marka muuqaalkan halkan aan ku joojinaynaa marka haddii saan samaystay oo haysdin lacag ba horay kala bixi kara waxaad u baahan tahay inaad ku samaysto
Pioneer waxa la dhahayo in aad ku xirto ay loo baahan yahay Pioneer muuqaal kale ku soo diyaarin doona application lacagtiis PayPal lagala baxayo dhalinyarta waan ku ilaaliyaa inta badan maadaama PayPal ba aan heli karin marka hadda waxaan idin fahansiiyay PayPal mar walba waxaan wax walba marka waan sameysnay Payeer waan leenahay Trust Wallet waan leenahay Perfect waan leenahay oo waxaan leenahay dadka lacagaha laga kala gamo dhamaantood waan leenahay marka PayPal ayaa noogu dambeeyay maanta ayaan sameysnay meel walba marka cid naga hor istaagi karto ma jirto marka aan shaqeysano lacaggan waan la soo bixi karnaa marka muuqaalkan halkan ku joojinaynaa iska soo laabad wanaagsan asxaabta channelka Halbeeg Time